raxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran janalkeena kasba option Soomaali. insha Allah maanta xagga waxaan doonayaa inaan su'aal muhiima aan uga jawaabo oo dhalinyartu inta badan soo weydiiso. waxaan rajeynayaa su'aashaas inaan maanta si faahfaahsan uga jawaabo. su'aashaas waa dokumentiga magaciisa loo yaqaano KYC. oo hadda markaan dib uga baxno halkan aynu imaadno profilkeena marka aynu imaadno halkan waxaad arki doontaa markaynu profilkeena saaran imaadno waxaad arki doontaa in la weydiin doono confirm your identity. oo waxa weeye dokumentiga KYC-ga halkan ku qoran yahay waad arkaysaa magaciisa inuu kan yahay dokumenti loo yaqaano KYC. oo KYC policy la'aantii aadan lacag la bixi karin 90% oo lagu weydiin doono. okay haddaba sida loo xaliyaa dokumentiga KYC? dokumentigan hal qaab baa loo xaliyaa, laba qaabna oo xalin kartaa, laakiin qaabka ugu muhiimsan baan kuu sheegayaa haddii aadan ahayn qof baasaboor haysta. okay waxaad imaan doontaa confirm baa ku dhufan doontaa your identity. kadib waxaa ku dhufan doontaa waxa loo yaqaano halkan meel keliyaad buuxin doontaa. halkan hadduu kaa aqbalo kaar bangiga muhiimad maaha. aniga hadda waxaad arkaysaa inuusan ii lahayn wax baasaboora iyo wax ID kaara oo dhalashaa midna baana ku buuxin, keliyaata unaan kaarka buuxiyey kadibna limitkaa la bixi kara la isiiyey, iskuma dhibinba. bas keliya IBS bankigayga baan geliyey. markiina IBS bankiga geliyey required bay noqotay oo way iga yeeleen. markay iga yeeleen kadib hadda waxaan tusi karaa markaan saa u geliyo wuxuu oranayaa smart selective fileka soo deji buu oranayaa. wuxuuna qaadanayaa buu oranayaa 3 days or 5 days business. weli ma gelin wax kaara. haddaan select idhaahdo wuxuu oranayaa choose dooro buu oranayaa. okay haddaan dib uga soo baxo waxaad arkaysaa sida uu bartan u soo geliyey wuxuu gelin lahaa kaard nambarkayga baasaboor nambar dhalashadayda oo 0B ka bilowma buu gelin lahaa. laakiin aniga wax kaara iyo wax dhalashaa midna iguma jirto. waxaan rajeynaya insha Allah middan isla faaniyo, laakiin bank card buu igu jiraa. limitkan la isiiyana waa 240. withdrawal markaan 240 siiyo oo withdraw complete la dhaho waxaa la ogolaan karaa inaan 250 kala la baxo isla timekaas lacagta withdrawalka ay soo gaadhay inaan isla timekaaba aan lacag kala la baxo. waxaan rajeynaya insha Allah inay faanteen. haddaan mar labaad ku celiyo markaad profilka timaado kadib waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay confirm your identity. markaad confirm ku dhufatid your identity kadib waxaad imaanaysaa waxa loo yaqaano meeshan ay ku qoran tahay bank cards. markaad bank card isticmaadid all the card aad wadatid baad gelinaysaa. all the card aad wadatid haddaad gelisid haddii uu kaa yeelo markaa kaarka aad wadatid inta badan kaararka uusan hadalka ka soo celin waa Daarusalaam Bank iyo IBS. inta badan waxaa laga yaabaa inuu kaa yara diido waxa loo yaqaano mastercard hadda inuu kaa yara diido kugu yara adkayo. laakiin waa muhiim inaad meesha dokumentiga aad mar walba soo dhamaystirto ood kaarka soo geliso. haddaad kaarka soo geliso isla markaa waxaa lagu siinayaa withdrawal limit baa lagu siinayaa. withdrawal limit haddii lagu siina alxamdulilah dhe bes way kugu dhantahay. markastaana withdrawal limitka lagu siiyey baad la baxaysaa. haddaad iminka screen la bixi lahayd haddaad iminka screen gelin lahayd halkan waxaa laga yaabaa in 1000 iyo wax lagu siin lahaa, laakiin 240 baa laysku siinayaa IBS bank dadka kaarkooda isticmaalaya. insha Allah waxaan rajeynayaa su'aasha inaan ka jawaabay. signalskiina insha Allah waxay inoo bilowmi doonaan galabta oo isniina. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan dhalinyarta intii ka faa'iideystay qorteen inay ka faa'iideysan doonto insha Allah. laakiin su'aasha aan rabay inaan ka jawaabo waxa weeye su'aasha la bixitaanka oo dhalinyaro badan dhib ku keentay, su'aalo badan ay iga soo weydiiyeen. insha Allah waxaan rajeynayaa in su'aashani ay wax badan ka kaafin doonto. profilkooda intay tagaan documentiska kasii tagaan soo buuxiyaan kaar bangiga kadib limitka qaataan kadibna baashaalan. insha Allah waxaan rajeynayaa su'aasha inaan ka jawaabay. fadlan haddaad channelka cusub subscribe, like and share and comment. wixii su'aalo insha Allah commentiga igu weydiin doontaa. channelkeena telegramkana waxaan soo dhigi doonaa linkiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.